sheekh Kenyaawi oo ku qabtay maanta muxaadaro aad iyo aad u ballaaran oo u qabtay dhalinyaradii reer Nairobi siiba khaasatan dhalinyaradii reer TikTok iyo gabartii dhawaan ku dhimatay Ilaahay u naxariistay Nairobi oo la dhihi jiray Muna Mustaf Muna Munish oo ahayd oo ku dhimatay shilka oo ahaan jirtay gabar iyo YouTuberada iyo ilmahan isticmaalo barta TikTok oo hooyadeeda habeen kasta riyada ugu imaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ya asxaabta aan jeclahay meel walba aad joogtaan waan idin salaamay habeen wanaagsan marka habeenayna u tahay idinkan waqti kastoo ay tahay wanaagsan see leeyahay soo dhawaada please haddii nagu cusubtiin subscribe noo saara hadda hore noogu joogteen waa mahadsantiin idinka waxaan idinku nahay marka cawada waxaan inta u fadhiyaa arrin cajiib ah anaka sida ogtihiin adduunyada loo batay qof aakhir ku soo xasuusina hadii aragtidna inta la xasuusi waa wax fiican marka waxaan ka hadlaa sheekh Kenyaawi sheekheena weyn oo Kenya maanta ku qabtay baraarujin dhalinyaro meel iskugu soo aruurtay oo muxaadaro ka qabtay oo muxaadaro aad iyo aad noo anfacaysa anaka dhan u baahannahay markasta inta la xasuusi way fiican tahay aakhiro ma dhimasho marka iyo sheekh Kenyaawi oo la kulmay gabartii Ilaahay u naxariistay Muna Mustaf Mariish gurigooda aaday oo la kulmay oo sheeko nooga wado marka kuyaaneen wada idinkana marka isla socod wanaagsan asxaabteeda meel walba joogtiin waan jeclahay isoo dhawaada marka waxa la dhahay marka guriga tag habeen kasta way nala joogtaa ma naga tagin cunug walaaleed dhan waxay dhaheen waa quriyoona habeen kasta walaasheena quriyoona marka qaasatan hooyadeeda waxay dhahday waxaan quriyooday gabarteeda oo labada daan iga shuminayso idhayso markaas isku nax markaas maxaa u naxdo hooy ma dhimanin adiga markaas ay dhadmay hooy ani ma dhimanin waa kula jooga dhahayso quriyooday oo faraxsan maasha Allah marka calaamad fiican waay farxadda marka gabartan markii oo ay ka sheekeynaysa hooyadeed maasha Allah waa gabar baar inta u ahayd gabar baar inta ahayd sheegtay gabar oo firfircoon inta ahayd oo maasha Allah marka oo ويسلان حتى مسيحان جرنا الله ما شاء الله تبارك الله ماذا هذا حتى إذا دولنا مسيحان جرت الله صوبته واحد يجرت هاي هي مركي ملائكتي إمات أنت أو مذحي وفيدا أرقت مربي إيجا نقطة مربي يجرت الله ما شاء الله ضدك دلنا يرد هذا جوكتو قفصاص وفكرة وعيرها ما شاء الله جور في عنهات حتى نقف كدور أنت أو ريف في عنا وغرياضه qofkii faraxsan qoslay ma sha Allah alxamdulillah wax fiican waaye calaamad fiican waaye marka waa kaasay marka reer TikTok leedan wuxuu u sheegay intee Ilaahay ka cabsadaan oo waxaan qaqaaban si baqaasadan gabdhaha u badan waxa qaaban oo dhigay TikTok intee iska dhaafaan marka ay gabartaas dhimatay dad wax badan ka bixiyay Allah jannakooda hadii adiga marka dhimatid wixii intii lagu la wadaaga rabin ogtahay intay xun yihiin adoo noolna iska dhaaf wallahi waxay kamid ahayd muxaadaradiisa sheekh wuxuu dhahay wax aan nacbantahay haddaba marka dhimatid intii lagu arko haddaba iska daay wuxuu dhahay aniga hadda waxay intii la tirtirma ogolaad maya marka dhinta kadib dadku way anfacayaan adigana saas u fikira siiba dhalinyarooy waa u jeediin intii la dhimano qof weyn qof yar ma ahan dhimashada anaga dhanaa saf ku jirno marka
intaaba duubin ka fikir, intaad duubin ka hor ka fikir maxaa duubayaa, maxaa iga soo gaari karo, dambiyaa mise ajiraan ka helaa. Horta siiba gabdhaha cowraarnaha inaka dhan, marka cowradeena asturano, gabdhaha yaryar siiba gabdhaha yaryar cowradeena asturta. Marka sheekas intaasoo ka sheekeynaya, marka aniga hadda waxaa inta ninkugu soo fadhiista intaa ka sheekeeya urabi maasha Allah. Wallaahi gabartii oo markay dhahdo hooyadeeda iyadoo faraxsana quryooda inta dhunkanayso oo waa niila joogaa leh. Marka ilaahay waxaa aga tooganaa khayrka insha Allah. ilaahay cidan ay ka dhimatana geeri xanuun ah waaye, sabar iyo iimaan ha kasii mar labaad iyo mar saddexaad. Marka waa kasee waxaa kasoo cusboonaatay intii oo maanta shaqo Kenyaaba gabartii u tagay gurigooda tagay oo qisadaas ay ka dhacday hooyadeeda eriyada habeen kasta ugu imaatay, habeen kasta ay imaatay dhad siday u dhimatay maba iiga tagin. Marka waxaan rajeynayaa barwaaqo iyo bash bash. Mac salaam, bye bye.